trying to deliver that ball faster. Safi Mayo with possession. Safi Mayo, Yunus is opening up. Oh, now goes to the legs of Omar! Cracker! Just look at how the stadium goes down. Abdullahi Omar with the beauty of a goal. Somalia leading Burundi by 1-0. Omar ayaa gool mid ka mid ah kuwa ugu quruxda badan dhaliyay gool. Habari kama anafunga Ulaya huko. Lambarka 10aad ee xulka Soomaaliya lug bidix ama kubad qurux badan ayuu shabaqa dhigay. Waa mid ka mid ah goolasha ugu quruxda badan laga dhaliyay tartankan. Xiisaha badan xulka Burundi ayaa lagu shubay shabaqooda. Umar ayaana gool ka dhaliyay xulka Zimbabwe. Taa lagu xasuusto tartankii la soo dhaafay ka soo hareen Soomaalida. gool caaqib leh gool aad u qurux badan ayuu shabaqa dhiganta laadin qaybta koowaad ee nasiinada dheeshan Umar Abdullahi Muhammad lambarka 10aad ee xulka mid kamid ah goolasha ugu quruxda badan ayuu shabaqa dhigay Burundi eber Somali gool horayaan u sheegay Burundiiska awood sida ma lahan galabta wax dhibic ah ma wataan laakiin Soomaaliya hal dhibic ay hor u soo shaqeysteen Djibouti ayaa ka soo adkaatay Burundi halka Soomaalida barbar la soo galeen xulka Djibouti taa ka dhigan awood sida inaysan galabta la soo shirtagin xulka Burundi taageerayaasha aad u sacbinaya aad ay u dabaaldegayaan wiilasha Shahid Saris kuwa ku damaashaaday goolkan quruxda badan uu dhaliyay wiilka guran ee Umar lambarka 10aad ee xulka Soomaaliya nin xiran lambarka 10 hadaad aragto waa mid awoodiisa banaanka taalo waa mid xirfad badan wallaahib banaankiisa isdhiga markan Burundiyaaskii hogaamiyahooda marka dhinacyada ayuu fiirinaya wala yaabay xaaladda sida ay tahay Soomaaliya gool Burundi eber koowaad ee nasiinada 3 daqiiqo ayaa ka harsan in la aado haddaadan arkin goolka uu dhaliyo Umar galabta gool ayaa ku dhaafay waa mid ka mid ah goolasha ugu quruxda badan angalka sare ayuu ka dhigay shabaqa gool ayaa xitaa ugu arkay kubadda meel ay ka martay iyo kubaddu meel ay kaga imaaday Burundiyaas kubadda soo ciyaara markan gool ay Saciid